أنا Suldaanka reer Maxamed halkan maanta waxaan ka sheegayaa laba qodob ayaan ka hadlayaa labada qodobna mid waxaan kula hadlayaa dawladda Soomaaliland midna waxaan kula hadlayaa reerkan Suldaanka reer Maxamed baan kula hadlayaa dawladda ay horeysay dawladdan la hadlayaa waxaan leeyahay dadka la qaxiyay ee wixii rag ahaana la soo xiray ee bulsha siimoodi deegaanka ku ah ee muwaadiniinta ah ee waxa loo soo xiray loo soo duubayna tahay in ajaanib bulsha dego waxaan leeyahay si degdega dadkaan halkiisii ah loogu celiyo muwaadiniintaasi looga qaadayo dhulka ajaanibka looga qaadayo dawladda waxaan farayaa ka codsanayaa inaanay fidna dhicin dadka halkiisii lagu celiyo waxa laayana faraha laga qaado keliya intaabaa dawladda farayaa reer Maxamedna mid baan farayaa ama miyaha joogo ama magaalaha joogo ama qurbaha joogo 7 cisho waa inuu iskugu yimaadaa gobolka Boorama reer Maxamed shiruu isku arka waa inuu iskugu yimaadaa intaabaa reer Maxamedna farayaa. Wassalaamu calaykum.